mawdiin salaadiin dhalinyaro haween iyo marti sharaf aad u fara badan oo loogu dabaaldegayay 13 guuradii ka soo wareegatay markii la caleema saaray ugaaska beesha Biyamaal ugaas Axmed Ugaasid Cali ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Muxudiin Maxamed Xaaji Ibraahim iyo haween iyo marti sharaf kale oo ka qayb galay muddadii dagaalada sokeeyay dalkaani ay ka bilowdeen waxaa burburay dawladnimadii Soomaaliya waxaa burburay siyaasadii Soomaaliya dhaqaalihii Soomaaliya wax kasta oo institutions ee dawlad ama shacab umad ay lahayd baa burburay Soomaaliya waxa kaliya ee Soomaaliya u soo haray wuxuu ahaa dhaqanka Soomaaliya dhaqanka oo ay horkacayeen hogaamiyayaasha dhaqanka waxa aan ku badbaadnay inta yareen naga hartayna waxay ahayd odayaasha dhaqanka waana ogeyn awalba ugaas Axmedey Ugaasid Cali inuu ugaaska beesha Biyamaal oo sacad inuu yahay maanta nooguma horeysa horaan u ogeyn ku faraxsanahay على مسارك أوجاس أحمدي أوجاسيد علي وحولها هذا حسنان تجشى أي باش أنت يدب سؤال الله وتأيرين وربل أن تلكنا وشاقنو بوركنا أن كجفنا أرنتا وحن كهدلونه وحواي مسيرك بيش دريت وحن كهدلونه وحواي إن واحد إسكو كي درس ما مرهبنا وح عد واي وحن بردينا أو جوا بس أكننا هاي سنة جوراي هم ما تمشي هالك إسكو نمد ugaas Axmed Ugaasid Cali Xuseen waxa rabnaa ugaaskii beesha direed waxa rabnaa ugaaskii beesha Biyamaal ugaasnimada gobolka Shabeellaha Hoose ugaas waxa loo yaqaan reerka loo yaqaan Sacad Liira sidoo kale munaasabadan waxa ka hadlay ugaas Axmed Ugaasid Cali oo ah ugaaska Biyamaal ee maanta munaasabadiisa loo dabaaldegayay yaa waxa rabaa in shaki badan inuu jiro muuqata shaki badan inuu jiro laakiin waxaan rabaa inaan fursaddan ka faa'iideysanayo inaan caddeeyo maanta koox iyo shakhsi iyo xisbi iyo dawlad iyo urur iyo nidaam jira iyo wax ka soo jira inaan mucaarad ku ahayn cid si gaara u beegsanayn isoo jirin haddii jiraan shakhsiyaad isla ugaaska waxbuu idiin dhimay ama waxbuu idiin dhimi doonaa waxa uu sheegay inaan dad wax u dhimin wax loo dhimi doonin marka waxaan ka rajeynayaa qof walba inaan la xiriiri doono ha samaado ha xumaado shantan farood ma sinna cidii ila soo xiriirtay cidaan la xiriiraba hawshan ana kaliya ima taale bulsho weyntaan u taala hadaan la ila qaadin oon garbaha la qaban oo aan golo shuuro la sameyn oon baasha la wada wadaagin oo talada la keenin kaligayga wax ma qaban karo si kastaba munaasabadan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi farxadeed waxaana dhammaan dadkii munaasabada ka qayb galay ay ka hadleen hamiyada ay leedahay in beesha Biyamaal ay yeelato hoggaan isla markaana munaasabadan caynkan oo kale ah loo dabaaldego markii xilligeeda la gaaro Liibaan Cabdi Royal TV Muqdisho.